عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام عباداتك إلهي اللي وقل دوادنا وكمد لما مسلمون انت اسكو خلاف سرين ما جرتو ولما توحيد هذا محل النزاع عين لقرطابها بون هذا دركت مسألة اسكو خلاف سيئة وحل اسكو خلاف سيئة exactly محويين لقرطابها في عن النبي صلي جيسو وعبادة qofkii badsan kare kaste muslime ha badsado saxaabi baa u yimo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisa markaan ducaysanayo ducadayda gaarka ah rubuc wax ku dhadhow baan adiga ka dhiga haddaad doonto ka badsa buu yidhi wuu soo waday nus baan ka dhiga haddaad doonto ka badso wuu soo waday markii dambe yidhi haddaad ducadoo dhan ba adiga salligaagaan ka dhigi haddaad ka wada dhigta buu nebigu yidhi hammigaagaa ilaahay kaaga filaanaya idan salliga nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo badsiga la badsadaa waa min addiin hamiga alla kaaga warwar adduun oo dhan baa kaa ba'aya haddii problem kasta ku qabsado intaad halkaa fadhiisata nebiga salligiisa aad badsato uu kaa tegaya soo qolada psychologigu ma yidhahdaan waxaan sameeya kan sameeya halkaa haddaad fadhiisato ama tasbiixsato ama salli nebi qaado waa kaa tegaya idan salliga nebigu calayhi salaatu wasalaam waa diintuu ka mid yahay kalgacalka nebi maxamed la jeclaadana waa min addiin bale wuxuu gaarsiisan yahay in lagu amray aabbaha iyo hooyada iyo intaad dhashayba inaad isaga ka horumariso ka jeceshahay inaad nebiga jeclaato macnaheedu waxa weeyaan warkiisu inuu kaala weynaado cid kastoo kale marka alla laga yimaado warkii isaga inaad warkiisa ka horumariso kamaalu liimaan ama iimaanka dhammaystirankiisuna wuxuu ku xidhan yahay sidaynu nebiga u jecelay calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisana waxyaabaha tilmaamo waxaa ka mid ah قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إنه سجر راعنه سؤال سويدين تلا مركا ما أها النبي محمد وينين تيسه كما هذلين قفك مسلم كي كدود أنا وكو قالوا بيا واضح صوت أسمع قفك مسلم كي النبي محمد وينين تيسه كدود قليا وكو قالوا بيا وهم حي مركا علده حاجة كجرتها علده وحي كجرتها maalintaa in la xusaa ma tahay qaab loo weynaynayo waa isku wada fursanna inaynu weynayno laakiin qaababkii layna faray inaynu nebiga u weynayno maalintaa in la xusaa ma ku jirtaa nebigu inooma sheegin isaguna ma xusin saxaabadii la joogtayna ma xusin taabiciintii ka dambaysana ma xusin madaahibta afarta ah culammadaynu ku naqaanayna may xusin haddaa xagee ka timi waa dambay muslimiinta badh ay la yimaadeen taarikhyahanada badh إمام المغريزي في كتابه سوق الطغرانيو waxay soo bilaabantay bay ku tilmaamaan dawlad Faatimiyya markii ay joogtay Masar dawladii ka talinaysay Ubaydiyinta loo oran jiray qolo Shiica ahayd ayaa waxay keentay 6 mawlid 6 birthday mawlidku waa birthday 6 birthday in la xuso nabiga alayhi salaatu wasalaam Ali ibn Abi Talib Faatima Xasan iyo Xuseen iyo boqorka shantaa inuu noqdo waxa la xusaya lixdaa inuu noqdo waxa la xusaya dawladdii shiicada ahayd baa la riday markii la riday nimankii meesha qabsaday waxay dhahay war shanta shiicadana inaga tuuro nebigana iska xusno shantiina way ka tageen kana way xuseen culamada waqtigaa wixii ka dambeysay waxay isweydiiyaan war mas'aladani ma ka mid tahay wixii diintu inoo sheegaysa mise kama mid aha culamada badh waxay yidhahdeen war dhibi kuma jirta haddii nebiga la xuso waa kaasi culamo badanina waxay leeyihin war ruuxani ma soo garan laakiin anigu hal kalaam kuu sheegayaa waxaasoo dhan ka baxsan haddaad maqasho mas'alada nebigu ma samaynin ama saxaabadii ma samaynin kama samaynin su-aal baan ku weydiinaya nebi maxamed siduu alle u caabuday si ka badan miyaad u caabudi karaysaa maalintaad intii nebi maxamed uu sameeyey dhammayso aan isugu nimaadna bidaca markaa socagaa maaha maalintaad intii nebi maxamed ka adkaato aan isweydiinna waxaa soo hadhay ma bannaantay mise ma bannaana laakiin intiiba haddaanad haynin waxba bidaca ka warramay idan nebi maxamed maalin ha u yeeline maalin walba ku salli inaad sanadkii maalin sugto oo tidhaahdo maalintaasaan ku sallinaya maalinta tan dhan kale markaynu ka eegno ma la garanayaa maalintuu exactly nebigu dhashay taariikhdii carbeed ee hore waxay u dhigantahay sidii taariikhdii soomaalida soomaalidu baadiya ku dhalataa siday u calaamadsan jireen laba wax bay calaamadsan jireen toddobaadka maalintay ka dhashaan way calaamadsan jireen waxaad maqlaysaa hebel isniin buu dhashay iyo khamiis buu dhashay iyo jimcu dhashay iyo axad buu dhashay taa soomaalidu ma laha way calaamadsan jireen waxay kaloo calaamadsan jireen
gugii ama dayrtii la dhashay wixii jiray gugii reer hebel lagu duulay gugii hebel dhintay gugii dayrta badnaa gugii cayn ayaa la calaamadsan jiray carabtii jaahiliyaduna saasay ahayd nebi maxamed markuu dhashay calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay maalintuu dhashay iyada wuu sheegay isniin baan dhashay buu yidhi isniintana wuu soomi jiray isniinta iyo khamiisahana wuu soomi jiray markaa wuu sheegay inuu isniin dhashay sanadkuu dhashiyo bishuu dhashay cidima garanaysaa sanadkii waxaa la yidhi sanadkii maroodigu maka ku soo duulay buu ku beegnaa marka waa sanadkii maroodiga markaa taariikhda la raadinaya war sanadkaasi halkuu kaga beegnaayo halkaasuu ku beegnaayo halkaasuu sanadkii maroodiga ugu dhashay ayay culimmadu yidhahdeen bisha ma la garanayaa waxay yidhahdaan waxaa loo filaya inay tahay bisha rabiicul awal ahay maalintana isniinta rabiicul awal qolo waxay yidhahdeen 12 ahayd taariikhyahanada hadda jooga waxay leeyihin markaa dib loo baadho 12 isniinba maaha nebiguna wuxuu yidhi isniin baa dhashay soo maaha haddaad dib u raacdo bay leeyihiin 12 isniin ma haysee la yeelaya axad alxufaad wuxuu leeyahy war 9 ahayd culamo kale waxaa qabtaa 8 marka maalintan 12 waa ashharu laqwaal waa warka ugu caansan ee taariikhyahanadu ay qoraan laakiin exactly inay ahayd maalintaasi xataa maalin laysku waafaqsanyay maaha soo duuduub hadday tay nebiga weynayntiisa maalin walba weyne 12 rabiicul awal ha sugine sanadkoo dhan weyne maalin kasta ku salli maalin kasta waxaad u samayn karta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u sameey hadday tahay maalintaasi miyay diinta ku soo aroortay waxaa dilla ammaan arag anugu wallahu aclam